magaalada Kismayo waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay muhiimadda cilmiga sayniska iyo tiknoolajiyadda ay u leedahay bulshada. barnaamijkan oo lagu magacaabo African Science Week ayaa waxaa maanta laga xusay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda wax ka barata iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Kismayo, maamulada iyo macallimiinta iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Kismayo, iyo xubno ka socday Somali STEM oo ah xubno ka shaqeeya sidii cilmiga sayniska loo baran lahaa. qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay iskuulada ku yaala magaalada Kismayo ayaa ayaguna halkaasi ka hadlay, waxayna faahfaahin ka bixiyaan muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismayo. xuska African Science Week oo Afrika dhan lagu qabanayo Soomaaliya maanta laba magaalo lagu talagalay in lagu qabto isbuucan. laba magaalo hore lagu soo qabtay, magaalada saddexaad waa magaalada Kismayo. barnaamijka hadafkiisa waxa waaye in sayniska lagu dhiirigeliyo dhalinyarada inay bartaan maadooyinka sayniska, engineerinka, xisaabta iyo technology-ga. maadooyinkan maadaama yihiin maadooyinka lagu hormaro oo horumarka adduunyada ka hadlayna oo ah in magaalooyinka horumaraan, dhismihii horumaro, waxaan ka qayb qaadan karo in maadooyinkan la barto. marka ardaydan inay bartaan ayagana waxay saacidaysaa horumarka bulshada oo dhan iyo dalka oo dhan. marka ardayda in lagu dhiirigeliyo hadda soo barnaamijka robotics-ka laga shaqaysiinayo ardayda jaamacadaha iyo dugsiga ka shaqaysiinayaan waxaa ka saaciday Dr. Saadiya. ardaydana waa la baray programmingtooda ayagana soo bandhigay programming si qurux badan ayaa u dhacday. Technology, engineering iyo mathematics oo isku geeyo waxa isku yiraahdaa STEM. marka muhiimadda ugu weyn ee macnaha aan leenahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed macnaha waxaan rabnaa in macnaha maadooyinkan sayniska iyo tiknoolajiyada, engineering iyo mathematics-ka ay macnaha aan ku ababino oo maadaama ay yihiin maadooyinka horumarka uu ku jiro macnaha si aan horumar u gaarno waxbarashadan ay u noqoto waxbarasho tayo leh. waxaan u baahannahay in maadooyinkan marka aan xoogga saarno aan ardayda ku dhiirigelino ku macnaha boorino inay xoogga ayaga saaraan haday Kismayo noqoto haday macnaha meel kale ay noqoto. marka si guud ahaan anaga marka waxaan u matalnaa Somali STEM Society Kismayo u matalnaa. marka waxaan rabnaa marka in ardayda reer Kismayo ay macnaha barnaamijkaas sayniska iyo tiknoolajiyada, engineering iyo mathematics. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismayo.